waxaynu baraarujin lahayn waddankeena sababaha keena furiinka si aynu bulshada uga daweyno aadna uga feejignaano waxa kamida tarbiyad la'aan iyo tadayun la'aan qofka hadii diintiisu ay wanaagsan tahay rabaayadiisuna fiican tahay wiil iyo gabadhba dulqaadka sabirka xuquuqda la ilaaliyo waxay noqonayaan waxyaabo aad loogu dadaalo oo dadka diintoodu fiican tahay turaalahooda badan sida daraadeed qoysaskoodu aad uma burburaan waa wax hubaala weey waxa keeni kara furiinka waxa la yiraahdo balwada nin marna qaadiraysan marna marqaansan marna xaraaraysan bal kaalay gara sida loola dhaqmayo saddexdaas buu dhaxeeyaa qof uu marqaansan cirku maraya uu jiiraya iyadii ciyaalkada marna uu xaraaraysan yahay hamaansiga ku badan oo waa markan ay yiraahdaan wajiga iga saaran tahay la hadle marna uu qaadiraysan yahay marka waxay sheegayaan saddexda xaaladood in aanu qofkii caadi ahayn kulli waa la isku dhacaya marka balwaduna waa musiibo khamri iyo daroogana hadalkeeda badaa baahida iyo faqriguna waa kamidoo dad badan oo iskaba goobaba isu samri kari waayo oo markay daadkaysan kari weydo ayaa khalaas ayaa furiinkii imanaya marka wax soo saarkiina waa muhiim dadka qaarkood aan istijaabinna waa keena markay isu dhali waayaan sabirku iska soo yara ururaa kadibna waxay leedahay war hebel deebalaan istijaabin marka sharcigu ma kala eriyaye day istijaabintoodana way iska wadan karaan reerkoodana way iska wadan karaan marka iyaduna iska fasaxday tiraahdo weeyde kol hadii niyaad cid kale iska guursato waa ku fasaxay laakiin istijaabintaasina way keentaa reerku inuu ku burburo bay'ada keeni karta bay'ada dadku ay ku nool yihiin dad iyagaba furiinku ku badan yahay ama aan xaasnimada jeclayn ama aan qoyska u roonayn oo gaalaha dad la noosh ama separation ka iyo kala degida aynu sheegayna kala baxa shaqadoodu tahay cudurka waad qaadi hadaa cid la degan tahay cudurka waad qaadi sida daraadeed baa qoysaskeena jaaliyada dabada aad buu furiinku ugu badan waxa laga yaabaa 100 dumar inaad u timaado 60 ay yihiin mudallaqaat ama kuwa la furay waxa keeni kara shaqada haday iyadu shaqayso ragga qaarkood baa shaqada ka xanaaqo yiraahda de gurigii baan kaaga soo horeynayaan kaaga dambeynaya ma iska dayn shaqadan war ma dayn maayo shaqada de waaba ku furay xidatu dabci wax iska jira way inta badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga adoomaha yaqaano abuuray ama laba qof oo wanaagsan buu isku hagaajiyaa ama ninka dul qaata ama gabadha laakiin laba xayraan sida badan isku ma hagaagaan markiiba way isku qarxaya dab ku dhufaa la yiraahdo marka sida badan labada dab isku dhufaahay haday salaam furiinku u yimaada waxa keeni kara furiinka labada waalid oo isfura hadii labadii waalid ay isfuraan dabcan cudur la kala qaadi karo weeye oo inantiina ay qaadi karto hooyadeed kaga dayan karto marka turaalahay ka mid tahay caruurteena si loogu turo in furiinka loo samro oo furiinka laga samro waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah tadakhulul ahli wal ashaab aad baynu baraarujinayna midka ehelka iyo asxaabtu inay soo farageliyaan reerka oo iyadana asxaabteedii baa soo ciyaarsiinayo dhagahaba ka haysta iyo dhakada isagana saaxiibadii baa ka dhaxadlaya ama xididkii baa ka dhaxadlaya iyada isagana ehelkiisii baa ka dhaxadlaya oo la talinayo wuxuu sheegayo naagta caynkan ku dhig naaninka caynkan ku dhig labada qof in la isu daayaaba iyaga nolol wada qaadanaya sida eeshiyaanka ma taqaanaa Pakistan India dadkaas gabadha marka loo guuriyo nin waxa la leeyahay heblaayay saacada laga bilaabo isagaan ku siinay wuu iska kaaleeyay wuu ku qaatay hanagu soo warwareegin waxaan kugu samafali karnaa kaliya telefoonkaas inaad nagala soo xidhiidho nala soo hadaaqasho waa kuwa baroortay mararka qaarkood kolka la meherinayo waxay la barooranaysaa reerkii bay waayayso inagana dabadaaba la haystaaba kaligeeda inantana dabada la haystaa inankana dabada la haystaa gabadhiina ninkii waa lala qabaa sidoo kale iyadiina hadday inantii dabada joogto reerkoodii baa halkan kala hadlaya waxay leeyihiin soo dir reerka adaa u maqanba isagina wuxuu leeyahay aanu wax biirsanno meel reerkii baa igu soo qaylaya isagina waa inta in leeg asxaabtuna waa noocaas oo kale ama wadaad ha ahaada ama waranle dad badan waxa waalaya asxaabta gurigii baa dumar wadaanuun oo isagii baa dhagta laga hadlayaa reerkii waxa kala kicinaya dad saaxiibo sheeganaya
oo saaxiibadaasina khayr intay qofkan iyo reerka dhismihiisa uma badnaa waxay u badan yihiin shar iyo naxli dabeetana intoo laga eriyo ayaa marka dambena lagu qoslaya waa tii iska ladnayda jannada ka soo baxday bay leeyihin marka hore intay ka firdhiyaan suulka kaga joogsadaan ayaa markay doqon noqotay reerkeedii burburisay ninkii ka baxsato iyadoo madaxa xoqanayso oo warwarsan markay arkaan baa waxay leeyihiin waa tidii sidii nebi aadan jannada ka soo baxday way ku wiirsanayaan marka waxaynu kula talinaynaa hablaheena qaaliga ah cid tala xun siinaysa inaanay aqbalin laakiin gabadh waliba ay ninkeeda ilaashato sidii khawla bintu thaclaba saxaabiya almashhuura suuratu adaad akhrida qad samic bilowgeeda wuxuu ilaahay ka warramay ruux dumar ah oo nebi maxamed ku warwareegaysa oo ninkeedii iyo carruurteedii la jeclaynaysa oo la doodaysa ka tegi laba isagu uu furay iyana way ka tegi laada qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir dood bay la gashay nebiga xaggeen daadaydii buu mariyey xooggaygii buu qaatay waa u isarifay xaggeen kaga tagaa taasaa loo baahan yahay xaawaleediinii hore udub xooggay qabsan jireen udub xoogga ma taqaana miyay garanayaanba udub xoog xaggee layga saaraya reerka marka ninku waa gabadh waa inay garataa reerka inaanu ninku kala hayn waayo way isguursadeen marka lale iyana way soo guurtay isna uu soo guuray way isguursadeen meesha ma kala lahaa marka yuu ku atoorayn waxaynu baraarujinaynaa ninkuna caqliyadiisa ha ku socdo gabadhuna caqligeeda ha ku socoto oo ehelkan iyo asxaabta reeraha burburinaya laga daayo waxaa keeni kara sababaha ka mid ah anuu qaadibaan ahayo kolley qadaagiina waan ku jiraa nidaamkii qoyska fatwadiina dhinacbay iga imanaysa mushkiladii dabaddana waa anigan sanad walba taga saddexdaa meelood baan ka soo ururiyey dhowr iyo 10 arrimood saddexdaa meelood waxaa ka mid ah kasratu lghiyaab wa qilatu sabri maqnaashahoo dheeraada saa horeba aynuu soo ishaarnay hadduu maqnaashuhu dheeraado dee qofka bani aadamkii raaxuu rabaa wehel buu rabaa farxad buu rabaa way samraysaa waliba dumarkeenu khayr allah sii waa dadka ugu sabir badan gabadh baa ku imanayso 5 sanadood buu ninkii iga maqan yahay 8 buu iga maqan yahay maba dhacdo dumarka adduunyada kama dhacdaba kaasina wax qoyskii burburin kara weeye waa in lagu xisaabtamaa 6 bilood 8 bilood 4 bilood ixtiraam zawaajka waxyaabaha furiinka keeni kara waxaa ka mid ah zawaajul maslaxa guurka danaysiga iyo muraadsiga ninkaniba markuu guursanayo kiishadeedu ku socdaa wuxuu leeyahay wallaahi dee waxa weeyaan waa isku luuqba ama wixeedana cun iyadana cun tani way macakiishadeedii bay iska sidataa buu leeyahay iyaduna markay aragto kolka dambe fahamta taa marka hore meherkii bay ka bixinaysaa gabaatigii waa tan ka bixisay yaradkii way ka bixisay marka dambe wayse soo taagaysa waxay leedahay intaa wax kaa bixin karaa waa dee ma badnaanayso dee wartay adiguna waxaagii keen waa la isku dhacaya ama waa isxambaarkaynu garanayna dee isagu wuxuu u guursanaya inuu ku dhoofo islaantan wuxuu u guursanaya waa islaan weyn isaga ka weyn inuu ku dhoofaa buu rabaa iyaduna odaygan weyn waxay u guursanaysaa inay ku dhooftaa bay rabtaa intee wuu sii jiri karaa guurkaas xambaarkee ku dhoofka markuu xaggaa isku hubsadu qofku ka dego ayuunbuu leeyahay warqadaadii ama warqadaydiisii zawaajulbasaxa baaba waxaa aada u xasaasiya waxaa la yidhaahda khuraafaadka iyo sixirka haddii u dhagoolaysaan taa waa arrin jirto xaqiiqo ah oo dowladina aanay waxba ka qaban dadkuna aanu ku baraarugsanayn bulshadeenniina qoysas badani ku burburayaan dadkaa khuraafaadka iyo sixirlayaashaas qoysas badan bay kala direen oo shuraakay kala direen oo ehel bay kala direen marka arrintaasi iskaashi bay u baahantay iyo weerar iyo difaac xoog leh haddii kale dadku meel daran baa laga doonaya qoysaska markay isfuraan isna xaggan ubuu eegaya iyana xaggan horta maxaynu isku furnay ilaan si dhinkaa lagu dallacado jalfis baa lagu xidhay way qarxeen markaasuu bay miirsanayaan iyagiioo labadiiba way barooranayaan dabeedna way isku soo noqonayaan marka arrintaasina waxay u baahan tahay dadaal aad u badan oo xukuumad iyo shacab la iska kaashado tacadudka qudhiisu waa ka mid oo dumarka qaarkood baa dee hinaaso oo samri kari waaya oo iyaduna ilaa dee kol haddii aad mid kala guursatay hebelow aniga iska kayfur taasina ma fiicna sabirku waa muhiim qofka dumarka hinaasaa waa la ogol yahay laakiin waa inaan reeraha duminin ilaa ka darbaa imanaysa waa laga daraya asbaabtaasoo dhowr iyo 10 in laga feejignaado daraasad lagu sameeyo xalkooda la raadiyo sida islaamku ugu dhigo waa muhiim